xoghaynta cusub ayaa xafiiska dhexdiisa si ula kac ah isu muujinaysa iyadoo dhaqan shukaansi ah u samaynaysa si ay u soo jiidato dareenka agaasimaha guud ee si kastaba ha ahaatee weli kuma guulaysan si lama filaan ah muuqaalkan waxaa aragta ayeeyada eoga haweenaydan waayeelka ah waxay ka khibrad badan tahay xoghaynta waxayna hal ilbidhigsi ku fahamtaa khiyaamada jaban ee ay adeegsanayso iyadoo aan waxba oran ayeeyadu si lama filaan ah ayay xafiiska u soo gashaa waxayna si xooggan u laadisaa xoghayntii xoghayntu markii hore waxay u malaynaysaa in eogu la kaftamayo waxayna u dhoola caddaysaa si sasabasho leh laakiin markay soo jeesato way naxdaa oo hadal la'aan bay noqotaa ayeeyada eoga ayaa ku canaanata adigu yaad ismoodaysaa adigoo eeg u labisan ayaad weli ku dhiiranaysaa inaad dadka meel walba ku sasabato ma u malaynaysaa in qof adiga oo kale ah uu u qalmo wiilkayga iyadoo aad u xanaaqsan ayeeyadu waxay qabsataa usheeda madaxa mastuulaaga leh waxayna si arxan darro ah u garaacdaa xoghayntii xoghayntu waxay ku carartaa xafiiska oo dhan ilaa ay ugu dambayn suuxdo xitaa markaas ayeeyadu kuma qanin waxay ka jiidaa lugta xoghaynta waxayna u soo jiidaa bannaanka xafiiska hortiisa shaqaalaha oo dhan taasoo qof walba yaab gelisa iyadoo cod adag ku hadlaysa ayay tidhaahdaa dhammaantiin si fiican u dhegaysta qofkii mar kale ku dhiirada inuu sidan oo kale ugu dhowaado wiilkayga tani bay ku dambayn doontaa kadib digniintaas ayeeyadu si sharaf leh ayay uga baxdaa halka xoghayn